بسم الله الرحمن الرحيم إن ما أنت شركة هلك كذا حياة وحرنا والمرتيات أما باقي كسر بحي إن هلك هذا ذيك آخر يوم إن شركة باقة شركة وضعتشيك بيش مدلول كودي ديسمبر كسرال بقول سرال يتوبكي لابد يكون يسرال يتوبكي وحكون جارة كويه شيء هوتيل مقدشو جاست هاوس وحجرتك مثل أي قيبها كالدوان بهوين تمدلول ضلك يدبت جوكته وحجرتك وحيصير مقلة وفلقيين حالة جودة ضلكو جارهان أرمها سياسة أمنية دخالها أرمها بالشدبة فلقين دير كدب وحجرتك بيش مدلول إيجا أو دولايا حالة جودة دالكو مرايو سيجارنا ديجانا بالوين تمدلو وحي جنانتكي إسلا قرتين إنا لما هوران تهاي إن بيش مدلو يالتو حالة دالكا يديجان كمدلو عرقتي كيالتو عرقتي مدايسا يو waxtarka guud gaar ahaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed hadaba iyadoo laga duulayo aragtidaas midaysan waxa la dhisay guddiga qabaqaabada shirka wadatashiga beelweynta mudulood waxayna go'aansadeen inay ay guud ahaan gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed baaqan nuxurkiisu yahay aas-aaskiisuna yahay Soomaalinimo walaalnimo iyo wadajir waana sidatan guud ahaan Soomaaliya shirka wadatashiga beesha mudulood wuxuu si guud ahaaneed Soomaaliya oo dhan ugu baaqayaa nabad ku wada noolaasho deris wanaag iyo wada lahaansho qaran sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ugu baaqayaa Soomaaliya oo dhan inay si wada jir ah looga soo horjeesto wax kasta oo sababi kara qalalaasa siyaasadeed dhibaato kastana xalinteeda in loo maro wadada wada hadalka Soomaalinimo dhammaan waxgaradka ummadda Soomaaliyeed oo u istaagay sidii Soomaaliya looga dhisi lahaa qaran waara kana shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo dalka in la dhiso qaran waara oo ka shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo diinta sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ku baaqayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhammaan dawlad goboleedyadu ay ixtiraamaan kuna dhaqmaan nuxurka dastuurka ku meel gaarka ah ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012 si loo helo xasilooni siyaasadeed mid amni iyo mid horumar dhaqaale shirka wadatashiga beelweynta mudulood wuxuu u mahad celinayaa bulshada caalamka ee Soomaaliya ka kaalmaysa dib u dhiska qaranka waxay kana codsanayaan inay si laabaan dadaalka ay ugu jirto dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed oo tayo leh isla markaana sidoo kale waxay bulshada caalamka iyo AMISOM bulshada caalamka iyo AMISOM ka codsanayaan inay dhaxdhaxaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya arrimaha deegaanka ee beesha mudulood waxgaradka soo abaabulay shirkan wadatashiga ee mudulood waxay isla garteen in la magacaabo guddi farsamo oo soo qabanqaabiya shirweyne beesha mudulood gudaha iyo dibadda isugu simaad sida ugu dhaqsiyaha badan shirkan waxaa lagu arrinsan doonaa arrimaha soo socda in looga arrinsado midnimada iyo aayaka tashiga beelweynta mudulood in looga arrinsado doorka iyo kaalinta beesha mudulood ku leedahay in 2020 iyo 2021 oo ay dalka ka dhacdo
doorasho xalaal ah isla markaana lagu dhaxlo deganaansho siyaasadeed in laga arrinsado arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle in laga arrinsado doorka iyo kaalinta beesha Mudulood kaga aadan wax wada lahaanshaha maamul goboleedyada si gaarana Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubbaland in laga wada arrinsado doorka ama kaalinta beesha Mudulood kaga aadan raadinta maamulka gobolka Banaadir oo bulshada gobolka Banaadir degan tahay oo soo dooratay in lagu arrinsado sidii shacabka Muqdisho u heli lahaayeen xuquuqda matalaadda siyaasadeed ee labada aqal gunaanadka iyo isxasuusin beesha Mudulood waxay xasuusinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay aaminsan tahay isla markaana ay tahay gogosha Soomaaliyeed sidaas daraaddeedna gogol nabadeed ayay Soomaaliya oo dhan u dhigaysaa gunaanadkii ujeeddada fog iyo midda beesha Mudulood waa in Soomaaliya laga dhigo qaran nabad ah oo ka horumarsan dhan kasta Soomaaliya ha noolaato guddiga qabanqaabada iyo midaynta Mudulood February 23 2020 Muqdisho Soomaaliya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن ما أنت الشركة هلك كذا حياة وحارنا والمقيادتي أما باقي كسر بحي إن هلك هذا اللي كجا آخرينه إن شركة وضعتشي بيش مدلول كودي ديسمبر كسرال بقول سجال يتوبكي لابد يكون يسجال يتوبكي waxaa kulan gaar ah ku yeeshay hotel Muqdisho ee Guest House waxgaradka metelaya qaybaha kala duwan ee bahweynta Mudulood ee dalka iyo dibadda joogta waxgaradku waxay si mug leh u falaqeeyeen xaaladda guud ee dalku gaar ahaan arrimaha siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba falaqayn dheer kadib waxaa waxgaradka beesha Mudulood iyaga oo ka duulaya xaaladda guud ee dalku maraayo si gaarana deegaanada beelweynta Mudulood waxay gunaanadkii isla garteen inay lama huraan tahay in beesha Mudulood yeelato xaaladda dalka iyo deegaanka Mudulood aragti midaysan iyo waxtarka guud gaar ahaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed haddaba iyadoo laga duulayo aragtidaas midaysan waxaa la dhisay guddiga qabanqaabada shirka wadatashiga beelweynta Mudulood waxayna go'aansadeen ay guud ahaan gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed baaqan nuxurkiisu yahay aas-aaskiisuna yahay Soomaalinimo walaalnimo iyo wadajir waana sida tan guud ahaan Soomaaliya shirka wadatashiga beesha Mudulood wuxuu si guud ahaaneed Soomaaliya oo dhan ugu baaqayaa nabad ku wada noolaasho deris wanaag iyo wada lahaansho qaran sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ugu baaqayaa Soomaaliya oo dhan inay si wada jir ah looga soo horjeesto wax kasta oo sababi kara qalalaasa siyaasadeed dhibaato kastana xalinteeda in loo maro wada hadalka Soomaalinimo dhammaan waxgaradka ummadda Soomaaliyeed oo u istaagay sidii Soomaaliya looga dhisi lahaa qaran waara kana shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo dalka in la dhiso qaran waara oo ka shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo diinta sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ku baaqayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhammaan dawlad goboleedyadu ay ixtiraamaan kuna dhaqmaan
nuxurka dastuurka kumeelgaarka ah ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012 si loo helo xasilooni siyaasadeed mid amni iyo mid horumar dhaqaale. shirka wada tashiga beelweynta Mudulood wuxuu u mahad celinayaa bulshada caalamka ee Soomaaliya ka kaalmaysa dib u dhiska qaranka. waxay kana codsanayaan inay sii laabaan dadaalka ay ugu jirto dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed oo tayo leh. isla markaana sidoo kale waxay bulshada caalamka iyo AMISOM bulshada caalamka iyo AMISOM ka codsanayaan inay dhaxdhaxaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. arrimaha deegaanka ee beesha Mudulood waxgaradka soo abaabulay shirkan wada tashiga ee Mudulood waxay isla garteen in la magacaabo guddi farsamo oo soo qabanqaabiya shirweyne beesha Mudulood gudaha iyo dibadda isugu simaad sida ugu dhaqsiyaha badan. shirkan waxaa lagu arrinsan doonaa arrimaha soo socda in looga arrinsado midnimada iyo aayaka tashiga beelweynta Mudulood, in looga arrinsado doorka iyo kaalinta beesha Mudulood ku leedahay in 2020 iyo 2021 oo ay dalka ka dhacdo doorasho xalaal ah isla markaana lagu dhaxlo deganaansho siyaasadeed, in laga arrinsado arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle, in laga arrinsado doorka iyo kaalinta beesha Mudulood kaga aadan wax wada lahaanshaha maamul goboleedyada si gaarana Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, in laga wada arrinsado doorka ama kaalinta beesha Mudulood kaga aadan raadinta maamulka gobolka Banaadir oo bulshada gobolka Banaadir degan oo soo dooratay, in lagu arrinsado sidii shacabka Muqdisho u heli lahaayeen xuquuqda matalaadda siyaasadeed ee labada aqal. gunaanadka iyo isxasuusin beesha Mudulood waxay xasuusinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay aaminsan tahay isla markaana ay tahay gogosha Soomaaliyeed, sidaas daraaddeedna gogol nabadeed ayay Soomaaliya oo dhan u dhigaysaa. gunaanadkii ujeeddada fog iyo midda beesha Mudulood waa in Soomaaliya laga dhigo qaran nabad ah oo ka horumarsan dhan kasta. Soomaaliya ha noolaato. guddiga qabanqaabada iyo midaynta Mudulood February 23 2020 Muqdisho Soomaaliya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. in maanta shirka halka ka dhacaya waxaan rabnaa warmurtiyeedkii ama baaqii ka soo baxay inaan halkaan idinkaga akhriyo. shirka wada tashiga beesha Mudulood 1 December 2019 waxaa kulan gaar ah ku yeeshay Hotel Muqdisho ee Guest House waxgaradka metelaya qaybaha kala duwan ee bahweynta Mudulood ee dalka iyo dibadda joogta. waxgaradku waxay si mug leh u falaqeeyeen xaaladda guud ee dalku, gaar ahaan arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshadaba. falaqayn dheer kadib waxaa waxgaradka beesha Mudulood iyaga oo ka duulaya xaaladda guud ee dalku maraayo, si gaarana deegaanada beelweynta Mudulood waxay gunaanadkii isla garteen inay lama huraan tahay in beesha Mudulood yeelato xaaladda dalka iyo deegaanka Mudulood aragti midaysan iyo waxtarka guud gaar ahaan dadka iyo dalka Soomaaliyeed. haddaba iyadoo laga duulayo aragtidaas midaysan waxaa la dhisay guddiga qabanqaabada shirka wada tashiga beelweynta Mudulood
waxayna go'aansadeen ay guud ahaan gaarsiiyaan ummadda Soomaaliyeed baaqaan nuxurkiisu yahay aas-aaskiisuna yahay Soomaalinimo walaalnimo iyo wadajir waana sida tan guud ahaan Soomaaliya shirka wadatashiga beesha Mudulood wuxuu si guud ahaaneed Soomaaliya oo dhan ugu baaqayaa nabad ku wada noolaasho deris wanaag iyo wada lahaansho qaran sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ugu baaqayaa Soomaaliya oo dhan inay si wada jir ah looga soo horjeesto wax kasta oo sababi kara qalalaasa siyaasadeed dhibaato kastana xalinteeda in loo maro wadada wada hadalka Soomaalinimo dhammaan waxgaradka ummadda Soomaaliyeed oo u istaagay sidii Soomaaliya looga dhisi lahaa qaran waara kana shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo dalka in la dhiso qaran waara oo ka shaqeeya maslaxada guud ee dadka iyo diinta sidaas oo kale shirka wadatashigu wuxuu ku baaqayaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay dhammaan dawlad goboleedyadu ay ixtiraamaan kuna dhaqmaan nuxurka dastuurka ku meel gaarka ah ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012